Bismillahi Raxmaani Raxiim. Daawada meel baa joogtaan soo dhawaada. Taariikhda maantay waa 31 bishii saddexaad 2022. Waxaan guda gelin doonaa farqiga u dhexeeya dowladaha reer galbeedka oo ku eedeynaya Putin inuu yahay dhiig-yacab oo wadamada weeraro oo dhan kumanaan kuwa oo shacab ah uu ku dilay. Waxaan soo qaadan doonaa marka dagaalada uu qaaday madaxweyne Putin iyo sida ugu eedeynayaan iyo muuqaalada ay soo bandhigeen iyo sawirada iyo maababka ay soo bandhigeen ayaan soo qaadan doonaa. Madaxweyne Putin gaar ahaan waxaan dul istaagi doonaa sidoo kale reer galbeedka ayaguna meelahay weerareen iyo dhibaato ka geysteen tacadiyada waa warkan gudihiisa ayuu ku jiraa. Daawadayaal marka saa ogtiinba saxaafadda reer galbeedka ayaa waxay aad u buunbuuninayaan in madaxweynaha dowladda Ruushka madaxweyne Putin uu yahay nin gacan ku dhiiglaa oo aan gaban oo dad badan ku laayay dalka Chechnya 1999kii caasimadda dalkaasna dhulka la simay kumanaan kun oo qofna halka ku laayay dad ilaa tiradooda waxaa lagu qiyaasay 30 kun oo qof ayay dhaheen inuu ku laayay Chechnya 1999kii asagoo markaa ahaa ninka labaad ugu awood badan dowladda dalka Ruushka. Saxaafadda reer galbeedka daawada sidoo kale waxay soo qaateen 2008kii inuu Georgia weeraray madaxweyne Putin oo dad badan uu ku laayay sidoo kale dalka Syria wuxuu ku laayay leeyihiin dad aad u fara badan ayuu ku laayay markuu weeraray Ruushka uu difaacay Bashar al-Assad. daawada waxay leeyihiin arrintan marka UN-ka warbixin ku soo saaray in ninka la yiraahdo Putin meesha weeraro oo dhulka iyo magaalada isla simo oo ay noqdaan meel saxara camal oo kala waxay leeyihiin waa inaan naxariista ka fog oo maartay dhiig-yacab oo boqolaal kun oo qof ay ku maqan yihiin hore asagoo kalena adduunkan loo arag wixii ka dambeeyay dagaalka labaad adduunka. daawada marka saxaafadda reer galbeedka waxay ku eedeynayaan madaxweyne Putin inuu yahay nin dhiig-yacab wadamo badan weeraray dad badan laayay laakiinse ayagu dhibka geysteen waxay ka qaranayaan saxaafadda caalamka. waxaad ogtihiin TV uga afdheeraa dowladda Ruushka la oran jiray RT YouTube-ka ku lahaa kasoo gelin jiray YouTube-ka inay xireen reer galbeedka TV-gaas aad u falaqayn jiray tacadiyada iyo dhibka iyo musuqmaasuqa iyo khiyaamada ay u geystaan reer galbeedka dunida gaar ahaan dunida islaamka. TV-gaas dhawaan ayaa laga saaray bartii ku lahaa YouTube-ka dowladda Ingiriiskana waxay kala noqotay laysinkii hase yeeshee Facebook ilaa hadda kalama noqon bartaas ciwaankay ku lahaayeen. daawadayaal reer galbeedku aad waxay ugu eedeeyaan madaxweyne Putin inuu yahay nin maaragtay shacabka aan u nixin oo meesha weeraro dhulka la sima hase yeeshee arrimahaas saxaafadaha reer galbeedka sida Ingiriiska sida tan Jarmalka sida tan Faransiiska tan Mareykanka oo kale xataa Turkiga hadda kusoo dar waxay dagaalka Ukraine aad u buunbuuninayaan wasiir gaashaaniga dowladda Mareykanka oo asna maaragtay Antony Blinken ninka la yiraahdo ayaa ku tilmaamay Putin nin maaragtay fulay ah oo markuu meel weeraro maaragtay dhulka la sameeya wuxuu yiri dagaalka Ukraine sidoo kale dagaalka guulka ma gaarin. daawada saa la socotaan madaxweynaha dowladda Ruushka madaxweyne Putin horey uu sheegay wuxuu yiri haddii aan maanta Ukraine aan tilaabo ka qaadan weyno cadowga wuxuu noo soo furtay uu yiri albaabkayga marka haddii maanta aan ka hortagi weyno beri kama hortagayno. taas waayo marka ama sidaa daraadeed uu weeraray Ukraine hadda maanta wuxuu ka dhigay sidii Ciraaq iyo Liibiya iyo Soomaaliya iyo Afghanistan oo kale. Ukraine waxaa la yiraahdaa maanta awood ma jirto haba yaraatee caasimadooda ayuu ku laalayaa waxay u badan tahay sida hadda la sheegayo sida madaxweynaha Mareykanka uu sheegay John Biden in uu isticmaali doono kiimiko si ciidamada Ukraine ay isku dhiibaan dabadeedna uu qabsado dalkaas oo dhan iyo caasimadda mar haddii caasimadda gacanta ku dhigana dalka intiisa kale oo dhan gacanta ku dhigaya xuduudaha dhinaca Poland oo Yurub xigana waxa weeye wadanka toos u tagin doonaan. arrintu fara kama qodna waana ay Turkigu waday arrintaas ilaa hadda wax heshiis lama gaarin. dowladda Ukraine waxay ku eedeynaysaa Ruushka in uu maaragtay ciidamada uu yiri wuxuu kala baxay agaarka Kiev ay been ahayd oo ay ahayd xaalad taatikaasi uu sheegay madaxweynaha dowladda Ukraine wuxuu yiri ciidamadoodii waxba kala may bixin hadda weerar kala soo qaaday in duqeymihii weli way wadaan maanta duqeymaha jiray ilaa caawa iyo ilaa xalay marka madaxweynaha Putin waxaa ka go'an inuu halkaas qabsado caasimadda dalkaas Kiev hase yeeshee daawada saa ujeedaan madaxweynihii dowladda Mareykanka Bill Clinton wuxuu ku dhawaaqay hadda kahor inuu weerarayo caasimadda dalka waddanka la oran jiray Yugoslavia Belgrade caasimadooda ayuu duqeeyay madaxweyne Bill Clinton. madaxweyne George W Bush labaad cunuga odagu dhalay asagana wuxuu duqeeyay Afghanistan Ciraaq kumanaan shacab ayaa ku dhintay
kumanaan baa ku dhaawacantay, hantidooda ku barakacay, malaayiin baa ku dhimatay halkaas. Kumanaan ma dhihin karna laakiin dhowr milyan waa gaarayaan. Ciraaq keligeeda ayaa lagu qiyaasaa 2 milyan iyo something, meesha Afghanistan 1 milyan iyo xoogaa lagu qiyaaso. Daawadayaal saa ogtiin dalka Ciraaq Mareykanka wuxuu ka geystay wax bini'aadantinimo ka baxsan. Si uu u duqeynayo hadda u jeedaan duqeynta uma kala aabayeelayo. Raashkaasaa ka darnaa sababtoo asaga wuxuu diidaya ciidamadiisa in wax soo gaaraan. Hadda dowladda Raashku ciidanka iyo ciidankeeduba shacabku way u turayaan, laakiin Mareykanka uma turin jirin shacabka meeluhu weeraro. Libiya Obama asna wuxuu ku dhawaaqay inuu shacabka difaacan doono. Duqeyn aan loo kala aabayeelin ayuu ku qaaday, waxaana ku dhimatay halkaas kumanaan kun oo qof ayagoo interest halkaas ka raadinaya si ay maaragtay doonahooda u fushadaan. Marka arrimaha reer galbeedka ay sameeyeen oo dunida muslim ka sameeyeen weli mid hore loo arka